الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم صدق الله العظيم. جزاه الله خيرا أفصح الله لسانه تلاوة عطرة وقلبك نمارة إنه راحي خير بدن الله سي شريف صار أنت ما كرسي صوبنا شريف جزاكم الله خير الله بركة قارئ جزاه الله خيرا رنتي جوي وحنا قليي النبي صلى الله عليه وسلم والتاجان وهذا لا عدكيسي عديان لغا كرمرين اللي marka majliskii nabigu na xasuusiyay salawaatullaahi wa salaamu alayhi khayr badan Allah siiyo hadana insha Allah taala waxaan ku wareejinayaa kelimada labaad Sheekh Umar Macalin Abdi oo muhaddis diyaara marka waliba aniga hadda waxaan ka dalbaday xadiiska u dambeeya asaga inuu noo khatimo aan arabkiisa maartay barakeysanaan ka dalbay marka hadana waa wixii Ilaahay waafajiyo oo khayra ونوصل جيدنا فليتفضل مشكور. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إلهي سبحانه وتعالى أيان مهد علينا meelaha sidaan oo kala ah waa meelaha la rajaynayo in malaa'ikta Ilaahay subhanahu wa ta'ala ay soo xaadirto oo qabuulka Ilaahay subhanahu wa ta'ala ana lagu helo Ilaahay inuu aqbalo runtii farxad weyn ayay noo tahay anagoon ahalna u ahayn meelahan kale soo xaadiridooda iyo ka soo qaybgalkooda iimaanshahooda. haddana xadiiska ugu dambeeyay aan wada dhageysanay oo afka sheekha aan ka dhageysanay xadiiskaas oo imaam Bukhari rahimahullahu ta'ala ahadiistii kitaabkiisa oo ku soo khatimay markuu eegay oo ku soo khatimay sheekha ayaa xadiiska noo aqriyay si fiican nooga qabtiray hadday tahay dhinaca icraabtiisa iyo hadday tahay xagga macnihiisaba wax dambe oo warana loogu laaban maayo lafdigiisana waa ka maqalnay xadiidkan Abu Hurayra radiyallahu anhu oo imaam Bukhari kitaabkiisa uu ku soo khatimay horta Bukhari laba meelood ayuu ku wariyaa oo saxiixiisa kamid ah kitaab ad-da'awaat ayuu marka hore ku soo wariyaa isagoo maxad maaratay haddana kitaab tawxiid waa ka ku khatimay cadamada Ilaahay subhanahu wa ta'ala isagoo uga hadlaya oo adoomaduna wax maxad maaratay ay cadamadaas Ilaahay subhanahu wa ta'ala qofku markuu Allah weyn markuu ka sheekeeyo isagana yanmu qadruhu wa ya'zum qadrigiisu waa weynaanaya isagana markuu Ilaahay subhanahu wa ta'ala uu ka hadlo oo Ilaahay oo weyneeyo isaguna waxa weeye waxa galaya meesha uu joogay waa ka kacaya koray u baxaya isaguna marka saas darteed ayaa maxad maartay imaam Bukhari oo noogu soo khatimay ahadiis fara badan ayaa oo cadamada Ilaahay tusinaysa ayaa aimaduna ay noo wariyaan hadda koora aimadii zuhad بعض التابعين oo zuhad aha Malik ibn Dinar oo dadkii casrigiisa dadkii ugu zuhdiga badnaa kamid aha kalimaadkiisu dhamooda ay ahaayeen khayr iyo nuur wada ahaayeen ayaa la weydiiyay cadamada Ilaahay ka waran markaas uu yiri maxaad u maleynaysaa buu yiri nin adoomadiisa qofka adoomadiisa ay kamid yihiin hal adoomadiisa oo dhan ma hal adoon oo 600 oo garab leh hal garab oo kamid ah haduu kala bixiyo khaafiqeynka oo dhan uu awdayo dhammaan meel yar oo banaan aan la arkayn adduunkan hal garab oo 600 oo garab waa Jibriil alayhi salaam sida nabigu ma sheegay sallallahu alayhi wasallam ka sugnaatay lahu 600 janaah hal garab oo kamid ah iska dhaaf 599 kale u kaadi hal garab oo kamid ah haduu kala bixiyo adduunka oo dhan isaga ayaa qaadanaya meel yar oo banaan male maxaad u maleynaysaa Allahas cadamadiisa bal ka waran adoomadiisa adoon kamid ah ayaa sidaas ah isaga maxaad u maleynaysaa حديث ابن عباس isaguna uu wariyay oo nabiga sallallahu alayhi wasallam uu ka warinayo imaam Abu al-Qasim at-Tabarani wuxuu yiri malaa'ikta Ilaahay waxa kamid ah malag hadii Ilaahay uu idmo subhanahu wa ta'ala an yaltaqima as-samawat wal aradin laltaqam kullaha had inuu wada laqo samaawaadkan iyo ardado dhan inuu wada dhunjiyo wada laqo hadii uu doono hadii uu Ilaahay uu idmi laha waa laqi laha maxduma leeysa markaas Allahas xadiiskii isagana Abu Daawud iyo ragaas ay wariyeen rag badan oo laha nabigu sallallahu alayhi wasallam xadiis saxiixa oo nabiga sallallahu alayhi wasallam uu yiri waxa li idmay buu yiri inaan ka sheekeeyo malag oo dhegtiisa shaxmatu udunihi iyo garabkiisa
قرب كيسان وأنا قد هل تاك حتى مدم مركز أنت رديت هل تاك حتى مدم إنتاس لوس عنيه أنت لوس عدش يعني شن بقول سنة كبدا أنت لوس عد أكلاه إنتاس أنت قول حسة ما بين شحمة الله أبو ركور الله أبو ركور الله دتكاس أدومدي ساعة ملائكتاس محد مارت وحويان مرك إلهي سبحانه وتعالى وحليهن ربنا ما عبدناك حق عبادتك وما عظمناك حق عظمتك إلهي يو كما أن نقدر كاجا حق أدول هذا هي كما أن وينك حق أول هذا هي كما أن ما هذا حق أدول مركز إلهي لي سبحانه وتعالى قدر كيجا ما أوجا إما فهمين قفك بين أنا يقول دارتي أنا إمسا جارن بين كل دارنين قفك بين يقول دارتي سقوا بين شقية دارتي أنا إما فهمين الرسالة يعني ملائكتي يفهمتي يعني الله سمع بين لو دارن كرا مركب بارك الله فيكم حديث كاس سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم هل كسوي ماشي هذا ليس سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وهذا الآد وين بدأ هذا الكاس أنا قلنا ليري هاي وحلقيه أنه قص اللي نام نحن لقيه سبحان الله وبحمده محاتري ولا سبحان الله وبحمده محاتري ولا يقول علي سبحان الله وبحمده أنساس سجاشة كينه لكن ملائكة إلهي فيه هذا الكاس مركي دهيان وقريريا ملائكة وهلك يعني دكتور يو قرب كود أنت سيود حيس سيدا محد ما ارتأي مدي سلف كإن بدن وكم مقار كم مدي أي وريان وأي شيئين حملة العرش ملائكة حملة العرش عرش إلهي حنبارسا مدحود وحي الله مهلكي عرش أيوم محد ما ارتأي مضحكوا هيان لقوه دن وحي الله للك أي الله للك واللي بقى روحنا تضبط أرض مد أجوه سيس أي عجيه سيالن إسقين مدحي سالك سياله الله سي أدوم أجيهن مركز واللي بقى عبسريان يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون مركز بارك الله فيكم وحويان وأرن وين أيام مشان لو ختمي كتابك صحيح البخاري أها أنتي أول بيسقو حلكي كتبت ودن أها كتبت وبني آدم أي صنفان وقعنتو يكو قرآن بني آدم كلامك إلهي اسكدف قرآنك اسكدف وكلامك إلهي وغير مخلوق اسكدف اسكدف لكن كلام بشر والنبي محمد صلى الله عليه وسلم هذا الكيس وقيمها بدنا كتابك وصحح لماذا بدنا أو لسوق جابيو هذا الذي بدنا يا حديث مكررات كهذه أبوابتي إيو أقواشي إيو أنت لقوي زبدتي وكله زبدة ما كجرو مركا أو محد ما يرادو كتاب بدء الوحي أو باب بدء الوحي إلى حديث كاس مال زبدة هنا كمجرو هذانا أنت وصي ميد أحد أيها الذين صحنا هرت أن سويدينه أحاديث سمحنا قبدش أحاديث أيضا ما حين نقبدش إني وحبة نقبدش على الربا رقمك إني بدش على الربا أخلاقي إني بدش على الربا فكري إني بدش على الربا وينينتين إلهي إني بدش على الربا أن وينين إني وحبة لقينا على الربا هدي أساس إسنقني وحبرني خسارة نقنيا صح دانا نقن حديثها سنة وإحنا قبدن أو يعني الاستكثار من زيادة الأحاديث كلي أن كجرنه بدون عمل وحنا نقول مركز وخسارة وحن برانينا وعلى ربا محد مارتي أن حجة إني وحن يكون نقدان لكن إني حجة يكون نقدان لما ربا هدي أن كعمل فلوينه أو دين جعيل الله جعيل نبي جعيل صحابتي النبي جعيل ضدك الدين كحسوا حنباري لقصوا بالله نبي صلى الله عليه وسلم ضدك كسوا حنباري صحابتي النبي صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم إلى وقت جانا ضدك الدين تسوس دي جعيل كودي وينين تودي قدرين تودي هدي اللي جاويه وحبا ما يسكوهش ملح وحبا فدي كدر وحبا كمان بدله وعلى فكر وين مركز دروس لسوا حاضر إن لسوا حاضره إن أمانة لسوا حاضره إلهي ابن المبارك رحمه الله أيها الويري ولي قاد علمي قد يسنيسيو مالي أضو حفاظي ووينا حديثك يا فقهك يا زهدك يا جهادك مال أرهاب ماله مال الإمام أيوكوها
ninka oo imaam nawawi rahimahullah markuu hadlay kitaabkiisa tahdhib al-asmaa wal lughat oo ka hadlaya markaasuu yiri alladhi turtaja ar-rahmatu bi dhikrihi ibn Mubarak buu sheegaya waxa weeyaan uu yiri waa ninka sheegiisa kaliya rahmada ilaahay soo degitaankiisa lagu wuxuu yiri maxad maartay وترتجى المغفرة مغفرة إلهي سبحانه وتعالى لقول رجي بمحبته جعلانت ابن المبارك نكار كاس قال أي مدى ساسكو أها مركا نكاسا وحا لقولي ومحي أضو انتهت حديث رجي سنيسي ميلو البعض حاضريسي ولي واتسي وضعي واسي ميادا مرنا مركا سوفيحو متك لإيقا نارت لإيقا حوري لها مقرنا يوير متك أويح محورا لإيقا سحوري ومعيان لها لإيقا حوري وحاليا باكي وقدم بيو نارت لإيقا حورين لها إنه ولي إيدا ميا ساس درتي دي مجوشن يبير dadkaas naarka xoreyn bay rabeen in naarta laga xoreeyo raqabtu naarta looga xoreeyo ay majaalis u soo fariisan jireen maxabatu nabiy sallallahu alayhi wasallam waxa raba marka xadiidka nabiga la akhrinayo sallallahu alayhi wasallam inaad yani nabiga suuradiisa ayaad u jeedin laakiin wax kale in iska maqnaan hadalkan waa hadalkay sida imaam malik rahimahullah imaam daar al-hijra muxuu sameeyay meesha oo xadiidka nabiga uu ku akhrinayo marka hore inta soo weysaysto soo cadaysado soo shanlaysto soo maxad mart bukhur ayuu soo shiday waxyaabo udgoon ayuu maxad mart shiday markaas saaso dhan muxuu yeelaya yani waxa weeyaan كأن النبي صلى الله عليه وسلم حاضر في هذا المكان النبي جوجو أكل لأن هذا الكيسي بالمقلية وهذا النبي صلى الله عليه وسلم مركب محبة النبي إن أدوسه حاضر تماشا وحديث كيس أدو جيستيت وأدهدنا أني جيستيت إن واحد بدن كاب بدشوا لقن كاب بدله سداس وقت ده محاضرة ما أحسن هين حوجا كلمة يرس حسين يسنا لا تجيني ومتك شيء يعني ماشي حبكم هايو كلو شيء أنا كل ورورنت الذين كيه إن هو شهر تسعين إن قتال ربا سيد الشيخ بينور شيء هذا وحويان كتاب قوينا يا أو مختصر يا أو لسوق أبي يا ماشى نالكو ختم عاو السجين إن المراجعينه السجن أنا لقديجن أنت سيرت أنا لقديجن هدف يا غاية أنا لقديجن لك هرا لو سيسعده وسنة النبي صلى الله عليه وسلم قاله سنة النبي وخير وواحد بعد دورنا لو جبد وواحد بدع دورنا لو جبد وواحد شرطنا لو جبد وواحد قابلي أنت عذره شرت ماشى لو جبد ماشى واحد سليدين آخرين يوم لكن أدو محد ما قادم ويدو يا كو محل إلى ذا كو قالون بناية عندكو قالون بنسها مجرد شر أورن وحلو جبد بعده فقر الدون يمد آخر كسب بالله خاتمة الخير وحلو هلا والدين كس وسنة النبي صلى الله عليه وسلم مالك لك ومر أفسنا مركين محد ما ارتسداس لو سو حاضرون ياس لو سو حاضر ضد فربضنا محد ما علماء الإسلام كا وحلي محد ما ورنيه وحبدنا دغيسنس حديث النبي صلى الله عليه وسلم وحول حديث النبي وحنا دغيسنيا بي عمر والبانو اقرينيا ودك ما دك اقرينايو وحا اقرينيا شيغيدا النبي صلى الله عليه وسلم النبي رب ان شيغيس انو غبطو نبي صلى الله عليه وسلم نبي صلى الله عليه وسلم مر والب صلى الله عليه وسلم مر صلى الله سي ان اوهله دوانشها النبي صلى الله عليه وسلم مالك قيامه الى النبي شيغي صلى الله عليه وسلم قف اذن كوغو دوانتا بيوكين دوان بدن مالك قيامه وقفك يقول صلي بدن أي النبي صلى الله عليه وسلم محدثين كصلي بدن ما بيجي جنبه ويقدر يقول صلي بدن مر والبابا لأن حديث هو البيسمر إما سجارة النبي كل صلينا صلى الله عليه وسلم وليود أنه ضد كان ما هي وضدك وردك على هالليا مرك بارك الله فيكم همي نكروا قادنا إن نصف عن برشات كروا قادنا إن محد مرت الدنيا والبقينا نضاف مجالسا الدنيا دورنا تلسكو دارو مجالسا طبعا دقيقة كمية ما جاري كرتو هدي الولا ما بهلي سيدي ما نقول يساء هدي الولا بالوالبوح الوسين انت كن دولار وملايين دولار الوسينة والله هدان فهم ملين مجلس كاس او طبعا دقيقة فريسا كاغا خير بدل ولكن فرق انصار شكل سيد انكو فريسان سيد انصار شكل لوغو فريست مركا ان همي كور لو قادو ان محل هذا محد مارتي ان ساس انكو ديالنا وقت انا كل انا وبالله التوفيق وصلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين. جزاه الله خيرا وافصح الله لسانه وكثر فينا امثاله. هذه الشيخ امه سنيهي وحاس وانا ذا قرحون ونغوانيين دغال لابت ودلال الله نسيو وتعيها اذن واعيه الله نو ارزاقه
haddana in sha allahu tacaala waxaan mikrofonka ku wareejinayaa fadiilat الsheekh الdoctor alqaari almuqri الsheekh moxamed cizat min ahli الsham min suuriya nasأl allah tabaaraka wa tacaala an yarfac algumة can اlأuma kuliha wa can ikhwanina khaasة ahli الsham falyatafadal mashkuura. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. نتشرف بحضور مسجد الشيخ علي الصوفي تخريج درس الحديث في الصحاح والسنن الشيخ محمود شيخ إبراهيم حفظه الله ونفع به آمين. إن خير الهدي هدي محمد، السنة هي هدي محمد، السنة الشريفة. المرجع الثاني بعد القرآن الكريم السنة الشريفة، هدي النبي عليه الصلاة والسلام. طبعا القرآن كله آيات مجملة، أقيموا الصلاة، لكن شروطها، أركانها، فرائضها، سننها، هيئاتها كلها في السنة. كذلك الزكاة والحج وكل الفرائض. القرآن آيات مجملة، السنة هي تفسر القرآن. الله أنزل القرآن وأنزل السنة، هي وحي من الله بلسان الرسول عليه الصلاة والسلام. طبعا السنة خدمها علماء الأمة حتى لا يدخلها تحريف، وضع زيادة، نقصان. يعني ميزوا الضعيف من الصحيح، ميزوا المقبول من غير المقبول. وضع الزنادقة كثيرا من الأحاديث من أجل تحريف هذا الدين، حتى كانت تضرب عنق أحدهم فيقول وهو ذاهب إلى القتل: وضعت فيكم، كما قال عبد الكريم ابن أبي العوجاء، وضعت فيكم 4000 حديث أحل فيها الحرام وأحرم الحلال. فأجابوه: عيننا عليها الله،
ويعينون ابن معين والبخاري ومسلم. هؤلاء الأئمة ميزوا الصحيح من السقيم ورفعوا هذا الدين، رضي الله عنهم أجمعين، آمين. العلماء كانوا يرحلون في طلب العلم، في طلب حديث واحد، يرحلون من المدينة، من مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الشام أو إلى العراق بطلب حديث واحد. همتهم عالية وقلوبهم حية بذكر الله وحبا بهذا الدين. كانوا في الليل يكتبون الحديث، لا ينامون، يكتبون الحديث. ما عندهم مطابع، ما عندهم آلات، ما عندهم حواسيب، تليفونات، يكتبون على ضوء السراج، على ضوء الشمعة، يكتبون في الليل، لا ينامون. حفظوا لنا هذا الدين لأن القرآن تكفل الله بحفظه، أما السنة الشريفة فقام بحفظها هؤلاء حتى وصلت إلينا نقية طاهرة مبرأة من بدع المبتدعين وضلال الضالين. الحمد لله رب العالمين. قيل لأحد العلماء: فيما لذتك؟ قال: في حجة تتبختر اتضاحا أو في شبهة تنزاح افتضاحا. يعني كانت لذتهم بباب من أبواب العلم أو بحديث أو بمعلومة يعني يتعلمونها. كانت هذه لذتهم في العلم وفي رد الشبه، فضح أصحاب الشبه. هذا حال العلماء. ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور. اللهم اجعلنا منهم واجعلنا ممن يعمل بسنة النبي المصطفى عليه الصلاة والسلام. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. بارك الله فيكم. جزاه الله خيرا وأفصح الله لسانه وثقل به ميزانه. فعربي كل حن ما يأسى إنه هجاجي سنة النبي صلوات الله وسلامه عليه كالنت أي دين تكجرتنا النوشيغي إن تير كلباد وقرآن كوحيغتهي أيضا لا أنت إن آيات أما حج زكاة فرض مثل فهم لها إني سنجرين وحنا إلهي مهديسة قرآنك إلهي وحفظنتيسة كفالات قاضي لكن سنة النبي صلوات الله وسلامه عليه رقبة إلهي كراميي وعمري قوة كبحيي نينكي دينتا بانت أحاديث أفر تكونوا الدجيي مركي الذي لا يحير محاد يقدي ليسان أفر كونوا حديثه بقأة يان دجيي مركا إلهي بان نوغا كالمين آيه ومعين نقنا يحيى بن معين البخاري رقاسا نوجوه marka ragaasa warkii la weydiiyay sheekh maxaad u jeceshahay waxa ugu macaanood hesha maxay tahay dadka shubha baadilka ay keeneen oo zuuliyo
iyo xaq ama xujo aan caddeeyo oo baadil taasaan ugu jeclahay marka kaalintoodii way guteen innaga marka ayna joogtaa ilaahay caza wajalla culamo caamiliina allah naga dhigo ardaydeennana kulligana ardayaan wadanahay dalabka cilmiga allah himad caaliya noo siiyo allahna maartay qabuulna siiyo khashada uu sheekhu ku duceeyna allahna siiyo hadda insha Allah taala waxaan rabaa maartay asharaafta iskuma xijineenay waa khayrkooda barakadooda waxaan rabnaa inay maartay khaatimada xaggeeda inaan u dhaweysano hadda waxaan ku wareejinayaa may waa asamiya haye waayahay marka hadda waxaa ustaad cabdulbaari waa dambeynaya yiri marka waxaa uu hadda hormariyey al-ustaad cabduraxmaan محمد محمود أحمد مساعدك يا حافظ وحلقية قلنا دكتور كالقية قلنا ابن الدكتور شينا جزاه الله خيرا مركا كلمة هل كان قاله حق أنا بخير كلمة مارت وقلت لك قال إنه أوقف قاطع ونظمية ما دام هذا الكاد وبدنا نثري وبدنا هذا الكون نظمي نثري قوي هذا العادي وككوبية هي marka insha Allah wixii Ilaahay ka waafajiyo ya hadan insha Allah ta'ala aan ku wareejinayna Ustaad Cabdiraxmaan falyatafadal mashkuuran بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد كل إسكاء أرض يرم بانه ولبا أرديد الشيخ كفايدي ستي كسي هوسية لكن حوي إيفاء لبعض حقوق شيخنا أيام وحي للسجود يدونا أدنو ونقعد دارنا إن علمدي ووينيدي وشوكتان كهر هذلو أما أنقار كم إذا بهذا الكهر مرة إن شاء الله تعالى ماء السعادة قد جرى وتقدم في نبض قلبي فانبرى وتبسم من وقع أمر قد بدت لسماعه كل النجوم أتت لكي تتوسم لما رأت ذاك الإمام تجسمت فيها السعادة والكرامة معلما هذه البلاد تنعمت وتزينت بنعيم وبل بالفخامة قد هما بالعلم قد مازت على أقرانها فبه علت فوق الكواكب والسماء العلم زين لا تزينك دونه أغلى الجواهر إن أردت تكرما يكفيك من شرف ورفعة منزل هذا النفيس على الذرى فتسنما العلم فخر للشمائل سلم أكرم به غنما ونعم تغنما خير العلوم إذا أردت إشارة هذا الكتاب وذا الحديث وأنعما فهما أصول الدين في حلل البهى وهما التقى وهما النهى هما تتنزل الرحمات عند جلوسنا لسماع خير القول طرا أكرما قال الرحيم وقال سيد رسلنا من كان كل مقوله بلغ السما هذا الإمام علته فوق بهائه حلل الكرامة والعلا وتكرما شيخ له رأي وصدق فراسة تستخرج الأمر الخفي المبهما كتب التقى والعلم فوق جبينه فتراه نورا ساطعا قد تمما فرع عريق في الكرامة ثابت نبت كريم
من أصول قوما شيخ الحديث بأرضنا أصل له والشيخ فرع للإصابة ألهما ذرية هي بعضها من بعضها والشبل فرع الأسد فاعلم وافهما وأقام أركان الشريعة إثرما فينا تداعى ركنها وتهدما اليوم قد ختمت أحاديث هنا طوبى لمن أخذ الحديث طوبى لمن أخذ الحديث وعلما بالأمس كان مفسرا يا حسنه واليوم جاء محدثا فلتنعما ثم الصلاة على النبي وآله ما لاح بدر في السماء وتمما. جزاه الله خيرا وغفر الله له. إلهي كأجرسيو دفاع سنة النبي صلى الله عليه وسلم يا أمانة علمك يا هذا النبي صلى الله عليه وسلم فوق ذلك بكثير أيوب مذيهي وقد أجاد وأفاد وحنا إذين شيئا ولقي لا أف صومالي ولا أف عربي لبا كلمة أو قوية ولقي وأني عن لي هاي وأن تري لسو أركي مايو marka la jeedinayo laakiin taageerayaashan kamid ah madaxan u ruuxa kaas waa gabay fiican marka tii fiican waxooga igu dhigtana waa ku ceeshtaa marka waan mubaarakeynayna inay maartay abwaanadii noo bateen shalay hadii ustaad Abdul Baari iyo marka hadda waa ka Sheekh Cabdiraxmaan Allah barakeeyo ilaahayna afkiisa iyo cilmigiisa iyo qalbigiisa Allah dhowro ma sha Allah ma dhahdeen hortare ما شاء الله هديك لا وحواي علماء هذا شو دم بنيكي نوصل بحوا هدانا أنا أنت أفك كلام روجينا عن أف كل بلا الكل بلا عن وضع نقطنا وده مركا ما شاء الله تبارك الله هلا بديه سي علماء بدأ هديك لا وحكي تجاين ماشي نيول باسوله مركا وأنت وقفتنا إلهي عز وجل هبركيه إلهينا مارتي هنود مدافو وحي أنا نهل وهين مركا وحي نقدم مارتي إلهي عز وجل ينكمل ويديسننا حدنا إن شاء الله تعالى سي مارتي كلماتكو اذكر عن وقت ونقول قال اسمه مركا أستاذ عبد الباري كلمات عادية مركا نظم ما هو ونثري مركا بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ولا ما بعد مرهدي صاحبك يا عبد الرحمن شعرك وأخري runtii kalimadku ma soo talagelin waxaana jeclaa in musharakadii isaga ay matasho laakiin hadduu sheekha ii yeeray shicirna la akhriyay nabiga iyo xadiidka lagu sheegayo dareenkayga wuu kacay anigana waxaan xusayaa abyaad oo nabiga calayhi salaatu wasalaam aan ku amaanay mowqifkana munaasibku waa insha allahu tacaala badat الشموس وصحت الأنواء في مبعث الهادي وشع ضياء والحق أبلج في النفوس وأشرقت أيام حسن كلها سراء والكفر لجلج بعد عز صاغرا لا مرحبا بالجهل فهو الداء خجلت حروفي دون وصف محمد خجلت حروفي دون وصف محمد وانتابني دون المديح حياء ماذا أقول وكل قولي قاصر يعي البيان وأفحم البلغاء أنا إن مدحت فلا ليكسب رفعة فلقد كفاه من الإله ثناء لكن لي شرف المديح وقدوتي حسان دون مقامه الشعراء يهفو فؤادي للنبي محمد وقد ارتوت من حبه الأعضاء تالله ما خلق الإله كمثله عقمت بمولد مثله حواء فكلامه الوحي العظيم ووجهه البدر المنير كذا الفعال سناء وخلاله خير الخلال وهديه خير الهدى وشمائل حسناء وهو الكريم وفضله عم الورى
إن المكارم رفعة وسماء نعم حديث لسانه نعم حديث بنانه هو كله نعماء وهو الشجاع إذا السيوف تقعقعت ولا العداة فكلهم جبناء بدر بدا بحر حبا غيث هما ليث عدا فتراكض الأعداء هو من سما حتى سما فوق السماء وتصاغرت لمقامه العظماء يا عاكفا في ذمه أقصر خزيت خزاية والفضل منك براء لا تحجب البدر المنير أنامل كلا ولا ضر السحاب عواء إن أنكرت عيناك ضوء الشمس من رمد فسل ينعت لك البصراء صلى الإله على النبي وآله وصحابه ما خاطب الأحياء. جزاكم الله خيرا. ما شاء الله القمران المنيران أفصح الله لسانهما وجزاهم الله خيرا وكثر فينا أمثالهما ويماسيه الله وجزاهم الله خيرا. حدنا إن شاء الله تعالى الكلمة قبل الأخيرة يعني وحان مارت أنسينينا شريف محمد عمر باعلوي marka ama baasakuuta marka waa taqaanaan oo asaga hadda kala inay idinku cusub yihiin laga yaabo asaga laga barayo insha Allah taala qali tafadhal mashkuur. bismillah alhamdulillah alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama wa baraka ala sayyidina wa habibina Muhammad وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيقول الله تبارك وتعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور. الله جل وعلا يا مهت إسكاله نقد إيدة مسلمين هدنا نقد إيدة أمدي نبي محمد صلى الله عليه وسلم وحنفدنا كتاب ختمديسا أما ختنكيسا التجريد الصريح إن وكتاب قيمة بدن لكن وحان اسويديننا ولا ليال أحاديث تاسان قادني محين نولوشيني كبدي شيء ما وحانا هي سيدي تجريد كم انتانا بلاوين أما انتان لنو بلاوين سيدان أهانجر نيمانا هي مسنولوشيني وحبا اسكبدي لي أحاديث عن صبرنا يو نبي هذا الذي صلى الله عليه وآله وسلم نولشيني وحمك بد شيء مسميا كيف سنته فينا وفي بيوتنا وفي معاملاتنا سنتي سنولشيني سيكتهي قريهيني سيكتهي أسرديني سيكتهي عرورتيني سيكتهي سان أولا معاملونا إهل كمر كان نحجوكنه سان أولا معاملونا وبدكيني دحدودي سيدان أولا معاملونا بلشديني دحديدي سيدان أولا معاملونا سوق مركان دحمرينه سيدان أولا معاملونا إلهي مركان لمعاملوني تبارك وتعالى سيدان أولا معاملونا حاسسكيني وحاسودن وحانبريو سنة النبي صلى الله عليه وسلم ساسدرتيدي ولا ليال waxaa aad u wanaagsan mar walba sunnada aan baranayno axaadiista nabiga sallallahu alayhi wasallam nolosheeni inay ka dhex muuqato ahlul xadiisi waxaa laga maarmaan ah dadka kale inay ka socnaadaan dadka kale inay ka duwanaadaan maxaa yeelay waxay baranayaan nabiga hadaladiisa sallallahu alayhi wasallam sidoo ahaan jiray afcaashiisa shamaa'ilkiisa ma arkaysaa waxaasoo dhan nolosheeni inay ka dhex muuqato bulshadeeni inay ka dhex muuqato nolosheeni guryaheeni inay ka dhex muuqato waxaad arkaysaa qofka iska caadiga ah bulshadeeni markaad dhex fiirisid markuu la mucaamaloonayo xaaskiisa oo kale kula mucaamaloonayo hadyigii nabiga sallallahu alayhi wasallam nabigeena alayhi salaatu wasalaam xaasaskiisa wiligiisa ma caynin ma aflagaadaynin wiligiisa gacan uma qaadin adiga xaalkaaga marka soo yahay axaadiistaasaad arkaysaa inaad ku qaylisid ama aad canaanatid ama aad gacan u qaadid ma aha dad baa waxaa dhaqan u ah inay gacan u qaadaan ay dilaan waxay ku leeyihiin gabar gar la qabto ma leh ganfuur la jabshay leedahay sidee ganfuurka loogu jibinaa oo maxaa dhacay
nabiga sallallahu alayhi wasallam naagihiisa wuu mucaamalo xasan oo kula mucaamaloonay dadna waxaa dhaqan u ah tumo mataqaano waa la tuutuuga anaga marka inaan iska tuutuugno oo aan la tumin maxaa yeelay waxaan ugu dayanaynaa nabiga calayhi salaatu wasalaam mar bay safar wuxuu la galay ummuna caaisha ayuu safar la galay calayhi salaatu wasalaam waxuu ku yidhi kaali orod aan isugu baxno orod bay isugu baxeen waxay tiri fasabaqtuhu nabiga ayaan orod kula baxay anaa ka badiyey maxaa yeelay caatay ahayd markaas weli hilib ma fuulin bacda sanawaad markii hilib uu fuulay ayuu hadda nabiga ku yidhi kaale haddana caaishoy orod baan isugu baxaynaa markaasay tiri fasabaqtuhu fasabaqanii orod baan kula baxay isagaa iga badiyey xoogaa wejigeedii wuxuu ka dareemay in naagaha laga badiyo ma jeclo ma ogtahay markaasuu qalbiga asagoo u dhisaya ayuu ku yidhi haadihi bitilka midaan hadda aan kaa badiyey u qaado tii hore aad iga badisay yacni fiiri mucaamalo wanaagiisa calayhi salaatu wasalaam ahlulxadiid zawjaadkoodii markay la mucaamaloonayaan saasoo kale ayaa la rabaa marka in si fiican loola mucaamaloodo xaasaska laga farxiyo ma arkaysaa si wanaagsan loola mucaamaloodo wacaashiruuhunna bilmacruuf naagaha kula dhaqma si sharciga lagu yaqaano macruuf ah dabeecad wanaagsan kula dhaqma marka saasoo kale ayaa la doonayaa laa siyama ahlulxadiid walaalayaal uguma sii jiraan ahlulxadiid inay noloshooda ka dhex muuqato nabiga calayhi salaatu wasalaam sifaadkiisa iyo axwaashiisa iyo ma arkaysa xarakaadkiisa iyo sunnadiisa inay ka dhex muuqato culummada maxay yidhaahdaan kutubada sunanta qofkii gurigiisa u yaalo kaana nabiya sala allahu calayhi wasalama fii beyti adiga marka haddii sunnadiisa korkaaga laga dhex helo oo adiga aad ku dhaqmaysid ka waran waxaad tahay nin fiican oo nabiga sunnadiisa tadbiiqinaya calayhi salaatu wasalaam taas waxay kugu bixinaysaa maxabadii nabiga in qalbigaaga uu dhexdego oo aad jeclaatid wax walba aad ka jeclaatid oo naftaada xataa aad ka jeclaatid mar walba maxabadiisa ayaa kugu sii badanaysa calayhi salaatu wasalaam saas darteeda walaalayaal ahlulxadiid waatan hadda lanoogu waramay sheekh cumar noo sheegay xafidahu allahu wajazaahu khayran uu yidhi ahlulxadiid ayagaa ugu badan salliga nabiga sala allahu calayhi wasalam maxaa yeelay mar walba xadiidka markay akhrinayaan can abi hurayrata radia allahu tacaala canhu qaal maxaa ku xigo qaala rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam ama saxaabiga inuu yidhaahdo samictu rasuula allahi sala allahu calayhi wasalam mar walba fiiri nabiga magaciisa uu sheegay calayhi salaatu wasalaam sala allahu calayhi wasalamaa ku xigo sala allahu calayhi wasalam marka nolosheeni dhinac walba fii kulli majaal min almajaalaat inay ka dhex muuqato sunnada nabiga calayhi salaatu wasalaam saas darteeda walaalayaal mar walba waxaan isku boorinaynaa sunnada nabiga calayhi salaatu wasalaam hirgelinteedii iyo tadbiiqinteedii iyo fidinteedii iyo faafinteedii inaan ku dadaalno weliba waxaan ku dari lahaa kitaabada lanoo aqrinayo hadda tajriidkii ayaan dhammaynay soo maaha yaa inaan bilaabno anaga oo sheekha intaan ijaazo iyo sanad ka qaadano inaan bilaabno xataa guriga ka dhex bilaab ilmahaagii ama waalidkaagii soo kulmi kaalaya kitaab baan idin bilaabaya kitaabka adiga bar oo guriga ka dhex aqri sunnada nabiga jeclaysiya calayhi salaatu wasalaam qalbigooda waxaa dhex digayo maxabadiisa calayhi salaatu wasalaam jeceylkiisa calayhi salaatu wasalaam khubayb ibnu cadiy radia allahu tacaala canhu wa ardaah markay gaalada ay soo qafaasheen ay la baxeen meel la yidhaahdo tanciim ay la ahdeen oo ay doonayaan inay dilaan naagihii iyo caruurtoodii iyo ma arkaysaa dumarkoodii iyo nimankii kulli ayaa isugu soo baxay waxay doonayaan inay daawadaan dilkii khubayb intaynan dilin ayuu ka idin weydiisay 2 rakac inuu dukado wuu dukaday markaasuu hawaaray allaahumma axsihim cadada waqtulhum badadan walaa tugaadir minhum axada markaasay bilaabeen xubnihiisa isagoo nool inay jarjaraan markaasuu yidhi falastu ubaalii xiina uqtalu musliman calى أyi janbin kana lilahi masraci wadalika fi daati اlإilaahi wain yasha yubaarik calى awsaali shilwin mumazac falastu bimubdin lilcaduwi takhashucan walaa jazacan ilى اllahi marjici marka
waxay bilaabeen isagoo nool aan la dilin oo dhiman xubnihiisa isagoo jarjaraan, isagoo nool sankay ka jareen, dhegahay ka jareen, dhiiggii ayaa ka burqanayo. markaasay ku yidhaahdeen atuxibu an yakuuna muxammadun makaanaka wa anta naajin fii ahlik, ma jeclaan lahayd Khubaybow inaad badbaado ehelkaaga caruurtaadii inaad iska dhex joogto, booska hadda adigu aad taagan tahay inuu nabi Muxamed taagnaan lahaa ma jeclaan lahayd? muxuu yidhi isagoo dhiigga ka burqanayaan ayuu hadlay, wuxuu yidhi wallaahi inaanan jeclaanaynin booska aan taaganahay Muxamed inuu joogo iska badaaye, isagoo hadda nabad qabo gurigiisa ehelkiisa uu dhex joogo qodax yar inay muddo inaanan jeclaanaynin. انظر إلى مدى محبته للرسول صلى الله عليه وسلم. بل فير انتو نبي جعلها عليه الصلاة والسلام ديجي سابرقنا جو هدنا محولي قاد حجر إني مدمر محايا لي ديجي كركي سودان كيانكي سوحا كل حجره حب النبي صلى الله عليه وسلم. مركب ولا ليال مرول بحان اسكب بورينا ما دام حديث كأنبرينينو إنان كل قنه ومدنا إنان جارسينو سلقي سنة إنان بدنا عليه الصلاة والسلام. نقفل أنبا أنت أمق لينو أحاديث لانو أقرنيو ومرول بوشيخ مركو يرادو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا قنا محانا صلى الله عليه وسلم. intaasaan ugu filan. laakiin adiga raatib samayso oo maalintii kunkoo xataa Allah ka dhigay nabiga ku salli calayhi salaatu wasalaam, taasna waxay kugu bixinaysaa xubbigiisa qalbigaaga inuu dhex dhigo oo sunnadiisa aad jeclaato, ku dhaqankiisa aad jeclaato. taasoo dhan waxaan ku gaari karnaa walaalayaal waxa aan baranayno inaan ku dhaqanno. وانتهى الله نقول أنفعه. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاه الله خيرا. شريفك الله بركيه، الله نكاقبل أحسن الله إليه. أهل الحديث أهل النبي وإن هم لم يصحبوا نفسه أنفاسه صحبوا. مركا ومقام بعد سرية waxaan rabaa intaanan ku wareejinin microfonka kelimada u dambaysa inaan maaragtay halkan ka xuso culimo markii hore xafladii hore aan tafsiirka khatimaynay nala joogtay oo hadda dalka ka maqan, iyo qaar markaa firaash saarnaa haddana adduunyada oo dhanba ka maqanba. macallin qaasim raxmatullaahi calayhi xafladii hore oo tafsiirka isagoo sakaraadoo maaragtay xanuunkii hayay shahaado allah uga dhige iyo dad u tegey gaari inta soo saaray halkan madiina noogu yimaadeen oo halkan xafladii hore khatinka hore nala joogeen. maanta qabrigu ku jira, haddii wax ajara maaragtay aan ka helo ama ay cid ka heshana dadka ay u socoto ka mid yahayo asaga duruusta halkan ka socota hore iyo gadaalba abaabulkeeda iyo taladeeda iyo iska lahaa. allah u naxariisto, amiin dhahaye. labada sheekh oo kale oo sanadkii horena nala joogtay saasoo kale sheekh xuseen yare culimmadii nala joogtay uu ka mid ahaa doorkii hore, haddana waa ahlulqubuur, asagana allah u naxariista. laba sheekh oo kale sheekh cabdulxay iyo sheekh maxamuud abuushayba, labadana safaray dalka uga maqan yihiinoo waa raadinay juhdina waa ku bixinay, laakiin inay dalka ka maqan yihiin aan soo ogaanay. marka intaana hadda ilaahay nasiibkeena uu ka dhigay. dhammaantood way wada mahadsan yihiin, allah ka ajar siiyo. wax allaala wixii maaragtay xaq iyo xusuus iyo xurmo nagu leh sheekhii masjidkan aasaasay, duriyadiisa iyo dhammaan wixii maaragtay jamaacada masjidka intaa dad baa sii dhimanayo oo ardayda xataa qaar ka mid ahoo oo maaragtay waa la wada socdo aakhira loo socdo. marka intay dhimatay allah u naxariista, inta noolna waa meyd socdee istiqaamo allaha siiyo. ilaahayna inaan baraarugnoon diinteenna maaragtay ku dhignana allah nagu irsaaqo. akhlaaqda wanaagsan ee uu shariifku nagula dardaarmay inaan qaadano ummad isjecel oo isu ducaysa, hadday xoogaa wax ku kala aragti duwanaatana in malada la isku wanaajiyo. oo hal camal ayaa qofna samayntiisu ajar ku helaya, qofna baabi'intiisa tirtiridiisu ajar ku helaya. ninbaa wuxuu arkay waxa niyaddooda kala duwan. nin neef suuqa u soo kaxaystay oo ku rafaadsan oo suu yeela garan la, markuu arkay inuu rafaadsan yahay iyo xarag inta u soo qaado neefkii ugu xiray, tiirna uu u suray, markaasuu ugu xiray. duco khayr badan allah ku siiyo, ilaahay saanaha ku yeelo. meesha hadda xoolaa lagu gadanaya, ninkii neefka markii laga gatay waa ka tegey tiirkii oo meesha ku yaallo
yaa nin u yimid markaas wuxuu yidhi walla meeshaan nin araggiisu daciif yahay ama habeen madow soo maro hadduu kan arko dhib weynuu u geysanayaayo waa siibay ninna suuraddiisuu ajir ku helay ninna siibidiisuu ajir ku helay dadku hadday masalo ku kala aragti doonaadaan in la isu gudbo la isnaco maaragtay la isxanto waa diin la'aan asxaabta nebiga sala allahu calayh wasalam akhlaaqda wanaagsan ee rabno inaan ka qaadanno ka baranno markii nebiga uu yidhi man kaana yu'minu billahi walyowmi alaakhir falaa yusalliyanna axadukum ilaa fii bani qurayda waa kala duwan ijtihaadkoodii qolo wuxuu siiyey daahiriyey noqdeenoo waxay dhaheen nebiga sala allahu calayh wasalam kama wadin in salaadan dhex ku tukanay haba tagta salaadda dee casarkiiyaa ka tegey maqribkiiyaa ka tegey cishihiyay gaareen halkaasay casar iyo maqrib cisho ku tukadeen qolana waxay dhaheen war nebiga saas kama wadine daahiriye ma noqonin macnahay fiiriyeenoo ta'wiilay aadeen oo waxay yidhaha wareedhe nebigu wuxuu ka waday hala dadaalo ka waday salaad ha laga taga kama wadin dhexay ku tukadeen labadii qolo nebiga sala allahu calayh wasalam yuu yidhi qoladana bidco ah ama qoladana xadiidkii nebiga diidoo gaala ah yuu yidhi marka haddii culammada weligeed waa iskhilaafi jirta masalena waa lagu kala aragti duwanaan jiray laakiin haddii ikhlaas jiro niyad wanaag ay jirto waxa waaye waa diinka waa nagu filanya waana naga badan yahay kelimadda u dambeysa marka insha allahu tacaala waxaan ku wareejinayaa fadiilat alwaalid الشيخ محمد حسين عرالة شيخ أدواء ينكو ريجينايا فليتفضل مشكورا أنا لما أدوب هذا الكيف تشكيل له وايد وايد تقانين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله سبحانه وتعالى وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون صدق الله العظيم قال عليه الصلاة والسلام نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فبلغها كما وعاها فرب مبلغ أو عام سامع كما عليه الصلاة والسلام أنو هل كان آيات هل كان حديث أوركي وكويجيه علماء با دينا كستبا لغا كافدي ولا ليال ميشان خير با كدعي وان ميل ويغان أول بوا بيت الله لكن بيوت إلهي ويكال نشادي حركة بدينا وبيت أسس على التقوى مركي هربا وري التقوى لغو أساسوها مسجد سوى بيت الله هذا مسجد القرآن يولى مقابح ومسجد العلم ومسجد الدعوة ومسجد تربية الأمة جيلالكي كسوى بحيان وحكبرتي الدنيا مركان مرقري ملك سامكو أرقى الحمد لله iyagoo dhalinyara iyo iyagoo odayaal iyo iyagoo duqoobay intaba lagu arkay sidiisaba taqwada waxa lagu asaasahay waxa laga arkaa ciribta dambaa laga arkaa marka hore dadku aad lama kala garan ilaahay baa dadka yaqaan marka masaajidkaani masaajidkaas waxaan maanta laga hadlay oo isugu nimid kitaabkii sagaalaad ee xadiiska nabiga sallallahu alayhi wasallam ee tajriid sariix ee xadiiska ugu dambeeyay annagana ilaahay nagu sharfay inaan maxaan ku iraada maaragtay ka qayb galno nagu sharfo karaamada iyo sharafta waxa qaatay dhammaan sheekhi akhriyay iyo talaamiidii dhageysatay iyo ahlul masjidkii dad ka faa'iideystay annaguna haddii la kureeyaa khatinkii xusn al khitaam إلهي سبحانه وتعالى إنه جمع الصعود نقدر هرت الله نقدر قدام أن محبيننا وهن جعلنا علم أهل كيسة وهن جعلنا وعاو إلهينا نقصوا قيب قليل وحلي المركب ولا الشيء وحب الله الشيء لكن علم الدين تا في مرتيس عمل كي كنت معدا اللي هو الشقيب وهي علماء وحاجر معلومات هي معمولات معلومات
dad badan haya oo diinta iyo adduunyada wax badan dad badan macluumaad badan iyo wax badan haya laakiin zamankan waxay yaraadeen macmuulaad camalkii baa yaraaday waxaana laga hadlayay intaas war kitaabkii waa dhammaydeen kitaabkii sagaalad waaye waana socdaane aqoontana sii wada oo duruusana sii wada haddii alla ku ran yahay camalkana ku dara dacwadana ku dara ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu noo sheegay dadka in laga doonayo haddii alla ku ran dad kasta oo meel jooga in dad ka midii baxaan oo dalbulcilmi u baxaan oo cilmiga ay doontaan oo ay soo weeleeyaan oo ay soo qabsadaan hadhowna dadkoodii kula laabtaan ee markaas dadkaas cilmiga gaarsiiyaan oo u digaana dignin siiyaan oo bishaaro siiyaan ilaahay baa noo sheegay falowlaa nafara min kulli firqatin daa'ifa liyatafaqahuu fi ddiin awal alfiqhu fi ddiin wa asal waliyundiruu qowmahum idaa rajacuu ilayhim rujuucna laga maaran dad cilmi waa soo qaadaye naftaada kaliya uma soo qaadine dadka aad u soo qaaday inaad kula laabato ee aad haddii alla ku ranya aad kula dadaasho taasi waa mid ayaddaasi camalkeedu wuxuu ku imaanayaa in nin waliba wax u qaaday hadduu qur'aan yahay iyo hadduu xadiid yahay iyo hadduu fiqi yahay diinta waxa aad ka baratay inaad camalkeedu wuxuu kuu noqonayaa adigana ku dhaqanto ummaddana aad gaarsiido allahna waafajiyo xadiidkan wuxuu yahay nebiga ducadiisii waay dhammaanteen ducada nebigaan rabnaa nadara allahu imra'an uu yidhi nebi alai salaam ducadii nebiga waa alai slat salaam samica maqaalatiya awal horta samci waa laga maarmo horta inaan maqalno waa nin soo xaadirin marka allaha nuuriyo allaha iftiimiyo wejigiisa allaha khayro nin maqaaladeeda maqlay haddaan majliskiiba la imaan intee laga maqlaa marka waaye haddaan la imaanin waan la soo dalbanin horta samica ugu horrayso waa kow fawacaaha aa ku xigta haddana si hadaf iyo ujeeddaad dalab dhaba ku qabo oo weelay waa laga maarmaan iyaduna maxaa ku xigo faballaqahaa haddana uu gaarsiiyey kamaa wacaa si u qabtay asagoon waxna ku darin waxna ka nusqaamin iyo u gaarsiiyey saddexdaana laga maarmaan samica waaci inuu noqdo muballiq inuu noqdo fa ruba muballaqina maxaa yimid haddana maxaa jiro oo badan haddii lagu ran yahay dad ayagu goobjoog ahayn oo markii sheekhu akhrinayay darsigaasi haddii lagu ran yahay aan isagu joogin oo caamin saama laakiin mid dhegaystay oo qaflo ku dhegaystay hurdo ku dhegaystay taleefon oo ku mashquulsanaa sheekhana darsiga akhrinayay oo ku mashquulsanay mid la gaaray kelmadii gaartay ee ka weelan badan inuu jiro sheekha bukhaari akhriyay arday yar u akhrinay waa dheeryahay waxaa la yidhi sanadaa lagu dhammaynayo raggu isku mid baa umaadshitadoo dhan rag ku dhammeeya laakiin culummada isu mid ma ardaydii waa hurdeen marka waa saxda sheekh waa wadaa ardayda inuu gaarsiiyaa la rabaa sanadaa u qoran inuu gaarsiiyo rabaa waa wadeen markaas ardaydu waxay yidhahdeen laytahu sakata kitaabkii waa ku daaleen raqbad ma hayaan dalab kuma jiro markaas waxay u bixiyeen sheekhi laytahu sakata soo socda ninka sheekhiisa le laytahu sakata awcaa ma laga helayo in wax weelaan ma laga helayo qolofkeennu meesha oo joogay qolofku waa badan yahay laakiin inta wax weelaynaysaa waa inta dalab kale waa inta ikhlaas kale waa inta arrinku uu ku weyn yahay saas darteed samica waa la rabaa soo xaadir weelay waxaan haddii ku celi addarsu xarfun watikraaru alfina culimmadu yidhaahdeen ku celi markaad qaadday kitaabka meel intaad dhigto haddana habeen waa soo qaadayna gaarsii haddana ummadda ducadii nabiga inaan kasbanno ma rabna sidaa darteed hadalkayga waxuu yahay waad akhrisanaysaan meeqa bilooduu socda kitaabku 3 bilood hal sano 3 bilood socday waa soo socday kitaabkii sagaalaad waaye hadda horaa la rabaa in loo soo socdo waxaa la ii sheegay lagu bishaariyey 2 usbuuc inay tahay baxa la baxo qaada waxaan idinka rabnaa shiikheena ugu horreeya kowdhe ardada meeshaan joogto 14 cashaad leedihiin 4 ku 10 casho oo khuruuj fi sabiil qaada waxaad qaadeen man mustacid sheeka ma jirto allah noo fududeeyo yaa diyaara sheekha gacanta adu haya mustaciduun insha allah qaada gaarsiiya
adiguna waxaad ka dhigataa camal ku noqonaya gaar sheekha bari tafsiirka uu akhriyo aakhirka uu akhriyo halkaan meesha meel ka soo markuu akhriyo wariyaade ta kooxana oo dhalinyaro noo yeeray wariyaade martin kitaabka ina barateen ha tago afar habrood baxda meel ku arursay dad u akhriyo hadda afar salaamad meel ku arursade orda dad u akhriyo markaas aragto ina barataan saad darteed markii la qaado oo aad la socoto waa ku soo baxay dadna waa ka faa'iiday wax weyn la xambaaray inta imaam al-bukhari intuu jooga inta lagu alifay kitaabkan rahmatullahi alayhi ila goormuu soo socday yaa soo qaaday imsa soo qaaday sidaas darteed walaalayaalo inaad dacwada ka shaqaysaan oo aad qaadaan waa suuqi aad badcadaad ku bixinayaan nimanka warshadaha leh iyo nimanka bakaari jooga oo bakhaarada leh nin walba suuq u geyn suuq geyn waxa la yiraahdaa sales waxa la yiraahdaa suuq geyn badcada suuq u samaystay ahli cilmiga maanta waxa ka maqan suuq uma sameeyaan badcadooda suuq uma sameeyaan la raadso dadka adigu la raadso oo meel walba ula tag oo gaarsii diyaar ma hoosna waa isu taaban doonaa ardayda insha Allah taala 10 bari aad gaaro ninka gaari waayo usbuuc ninka gaari waayo yaraan 3 bari hadii la leeyahay waxay maahay fasax weyn markuu yimaado yaa la idinka qaadi doonaa waqti dheer insha Allah جزاه الله خيرا شيخ دواي الله بركيه إلهنا عز وجل أنت كوبناد حاشا ديراد ونقولها هذلي سمع إيه فوعاء إيه فبلغ الله نسيه ودعاء النبي مكتب صلى الله عليه وسلم ماذا نينك حوغا وناق يا خير نقوم لي أو هبلو نوسو دعاء الله هو إن لا أقبله ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم مركا دعاء النبي إن قادنا صديار منين مركا إن مقلنا أو ويلنا كعمل فلنا أمدنا أنجرسين الله نوير زاغه هذا إن شاء الله تعالى قارئ مركا هربا نوفري الشيخ محمد نور يعني هذا مارتي وير يا محمد خير مركا إنه مارتي نوصل ختمه مركا جزاه الله خير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستاذنوه إن الذين يستاذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله فإذا استاذنوك لبعض شأنهم فاذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم ألا إن لله ما في السماوات والأرض قد يعلم ما أنتم عليه ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا
والله بكل شيء عليم. صدق الله العظيم.